ايو ايغو دhalay ee tuugsada bila adreeska gaariga dhex saxda shata fuck up niyo hay maxaa ku wara ina aniga they told me commentiga la igu soo sheegay aamus dadka aniga halka ay saraaxa tawandici nacala qabxadi ku dhasho ku yaale eeyo eeygu dhalay ee gaariga dhex saxda ee nolosha ka dhacay niyo anigu eeyaha oo nolosha ka dhacay aamus look at me niyo daarol baan niyo lichana niyo midgaanti ku dhasho wasi aabahaagi geedka saaran jirin nacala ku yaale garacyo garacda mood gal allah qabxadi ku dhasho aabaha ku yaale nacala mood gal riya وريا هص مود قال هذيك امس هص اباها وريا معنا دارود ادي مود كوغليا معنا دارود ادي مود كوغليا متكان الله فيها لان عرجك انا فوت جري اي يقول له دمار كنيو look at me اوجي جانجي نيو متجانتي كل شواسي اباهاغي دميرها وسي جرا واسي عوان يا عوان ku dhalay ee bila afrika bila adreeska gaariga dhex seexdanayo aamus niyo kala badi ku dhashay pastor dhalay oo hooyadiis ka sir weynaata bah nacala qabxadi ku dhashay ku yaari وريا عاقديدي عاقدها ما كنت ورا سيدي هور فدhiyo waaba xaraaqaba wallah nacalad baadiyo hooyada badhash وريا cabtooy baan soo weeraraba soo naga yaabanba dad baashi وريا caadi u cabsiya urge baa ka siya waaba cabtooy caadi waxe waaba khayr dhaabiraya asagta dhiga ka socdo wallah daahir cali soo foori level soo qaata waa uu kor wareegay daahirow ilmahan inta iska reebtid oo halka geysid tolkaaga ama nabad u keen ama colaad gali niyo anigu runtan ku sheegaya in qolo kasta iyo qof kasta oo dadka dhexdhexaad la maaga la xigto la surmo isna guud tolkaaga inta horkacdid ninaan qada u baahnayn quraana u baahnayn adaa halka inta tagtid waxa tiraahdaa warnimayo ikaad yo waxaas meesha dhalinyarada seesta adigu odayaa tahay sabab waxa soo atay hadda intuu baraaca cid yahay hadda wax idinka sheegay waxa ka dhaxay male adi qofda wax ka dhaxay waxa waqti u gilnay abo ma maqashaa ha aniga waa socona ana ku sheegay ana socdo maay deeynade war aniga halkaasaan shalay soo qabsaday qolka yubo Soomaalidu soo qabsanayso nabadda ka shaqeynaysa kamid aha nin baa anta soo qabsaday si personal igu tubaraac anay hore halkaan nabad uga dhawaaqay nin baa qol soo furteen si personal igu aflagaadeen ما هو رنت على الربع دي صوماليدا waxa li wadar iyo waaxid yaa qaldan maanta bool ku tuur oo iraada sacad iyo cayr yaa qaldan ummadana meesha u codeynaya waa u jeedaa aniga waxaan nimayo nabad qaata oo meeytada iyo walaal gabdhaha la caynayo walaalaheena niyo sacadna meesha ma joogo cayrna ma joogo waxa ku sheega ma ana dhageyso waa qaldan tahay ila qaldan waxa cadeynaysa maxaan ku qaldana waxa dhageyso laba sana gabadha aniga qaba iyo hooyada dhimatay iyo gabdhahan dhalay iyo gabdhaha sacadba ay caynayeen rag qabiilka ka soo jeeda cayr ma aha laakiin uma tiraan iyo caynayeen wallahi oo billahi oo tallahi magac ilaahay mata inaan wax wada hadal la galeyn caydaas soconaysa ilaa laga dhinto wax la galayo iyo qof la xadoonayo ma jirto anaga qabiil caymayno aniga ka soo daa in qabiil limayta la cay laakiin waxaan ka hadlaa ninka ugu weyn oo laga hadlo waa adiga aniga shakhsiyan wax igala dhaxeeya sacad ma jiraan iska dhaaf haddana ku sheegay shooladayda ha ka fogaadaan